الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وزير الدولة وزارة القاشادق ترياها عيدا كحوق الدولة الصومالية، ترياها عيدا كبضة سرياج سراكيش الدحاء كوا هوسه سراكيل حجينada dableyda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda maamulida saxaafadda qof walba halkaan fadhiya iyo mansabka iyo protocolku ku fadhiyo waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. salaam kadib wasiir iyo golow inaan dul istaago munaasabada maanta aynu u fadhinaa halkan ee ku astaysan xil wareejinta taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka dhulka. wasiir taliye runtii muhiimad gaar ah ay leedahay inaan maanta hortiina soo istaago si rasmi ah aan uga wareego xilka la igu magacaabay ee ah taliye xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo dareensan inay tahay mas'uuliyad weyn oo aad u ballaaran. waxaan hortiina iyo horta Ilaahay hortii ku ballan qaadayaa in waajibka dastuuriga ah wadaniga ah ee la dhiibay aan u guto sida ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta. mudana wasiir taliye sareeyayaal dhammaantiin waxaan ogsoonahay in mas'uuliyadda ay tahay arrin aad iyo aad u weyn adduunyadana ay tahay haddii aanan lagugu gargaarin oo aan lagugu garabgelin midna daamaha dhibaato ah aakhirana shallaay ah. sidii xadiiska ku timid xadiisku macnihiisu ahaa war ha weydiinin mas'uuliyad inaad qaato maxaa yeelay adduunyadu waa khasaar aakhirana waa nadaamo. ilaahay uu yiri subhanahu wa ta'ala inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard fa abayna an yahmilnaha fa hamalaha al-insan. amaanada waxaan u bandhignay cirkii dhulka way diideen cirkii dhulka oo aad ogtihiin inta uu maaskooda iyo mugoodu yahay inta ay fidsan yihiin inta ay leeyihiin bini aadan daciif ah ayaa qaaday mas'uuliyadda innahu kaana daruuman jahuula waa mid dulmi badan haddana jaahilnimo badan. sidaa darteed bini aadan baynu nahay mas'uuliyadda inaan boqol ka soo baxno waa mustaxiil ma adka laakiin waxaan aaminsanahay haddaan isgarab galno aan nin walba meesha shaqadu uu ka leeyahay qof walba meeshuu shaqada ka leeyahay ka qabto mas'uuliyadda madaxdiina loo dhiibay iyo taliyaashiina da'doodu iyo khibradooda iyo aqoontooda ha gaabnaateen waxaan isleeyahay in la gaari doono ujeedooyin waaweyn nidaamka iyo qaabka maanta ciidankeenu u yaalana wax badan laga bedeli doono. sababtaan sidaa u leeyahay waxa weeye annagu idinkoo libaaxyo Afrika ah sareeyayaasha raalliga ahaada libaaxyo Afrika soo ma gaarin inkastoo ehelad ciidan aynu nahay oo ciidanka aan xiriir aniga gaar ahaan la leeyahay laakiinse ma arki jirin oo history bay ku tahay waxyaabaha literature la yiraahdo markii laga hadlayna waxaabaan ahaan jiray waxaabaa jiri jiray markii lagu yiraahdo wixii aysan ku muuqan ay hadda taagneen inaan nolosha caadiga ku dabaqday aad bay u adag tahay. anoo ictiraafsan juhdigii dadaalkii dheeraa ay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waqtiyadii kala duwanaa ay ku soo bixiyeen difaaca dalka ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dalka. laakiin walaalayaal waxa maanta noo yaallo waa wixii aad arki jirteen wax ka duwan. waxa noo yaalla dagaal abaabulan oo isdiyaariyay intaan qabiil isku diray inta Soomaalida ay kala qaybsaneen SPM SNA SUSC qashin la waday nimanka waa isaga abulayeen Kemboni iyo
كدا يقشن بيودين ندتك بواقت أخري ويقرنا إلى واقع ستر يستوي كوسو كوباي سومالي لا تبري تكتيك يوحول ما أنت وحيوبا أنت هاي عيدا دقائق كره sida ay u talaabsanayaan oo kale u talaabsan kara awoodna meelaha ay joogaan u gala waxaan ballan qaadaynaa inaan ciidanka noocaas oo kale insha Allah ta'ala annagu ku shaqeynayna tilmaamaha waajibaadka iyo aragtida taliyaha ma noqon doonto inaan iska soo labisano oo aynu wasaaradda imaanno ee 8 iyo barka kadibna 12 markii la gaaro ka tagno ma dhici doonto noocaas dal lagu difaaco shaqada aan leenahay hadafka aynu leenahay kama turjumayso inaan gaari karno qaabkaas hadii aan ku shaqeeyo ayadoo munaasabada fara badan aan ka hadlay aan ku wada hadli doono kuna sheekaysan doono insha Allah ta'ala waxaan warkayga ku soo gunaanudaya warkii ay yiraahdeen gobolada horseed ee ahaa gaashaankii waxaa tihiin gayiga Soomaaliyeed nin xal qaaday ee qaad ku biirida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dishbilinka waxa noogu qoran waa nin iyo ikhtiyaarkiis nin allaale ninkii ciidanka xoogga dalka soo qortay ha u diyaar garoobo mashaqo iyo dib waa dynamicska uu qofka askariga ah ugu bedelan yahay qofka civilianka ee shacbiga sidaas darteed mas'uuliyadaas من جديد إلى جنرال ويقدرس أنا وضع شقينه أنا إلهي درس عرنه إلهي وحكي الجنة سبحانه وتعالى إنه نقول إن أنا كقول يسمنه دناها الله إنه ينجارنه أمنيجا إن بالجريدة الصومالية أنا كقول يسمنه هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله